weligood ha ciyaane iska ciyaane weligood ha ciyaane awlkowgiija waayahay waxaan idinla wadaagi doonaa hees lagu karbaashay qadaadweyntii iyo yanyamtii reer Somaliland isku doondoonatay saaxiibayaal soo dhawaada heestan magaceedu waxa la yiraahdaa ha ciyaane sidee ha u ciyaane sidan ha u ciyaane waxa weeyi ha ciyaane awrta ma garanaysaa inoo rara heestaasaan idinla wadaagi doonaa waxaan idinka codsanayaa reer Somaliland inaad muuqaalkan like kareysiin sidoo kale share gareysiin waxa weeyi wax kasto isku difaaci karno inagu waynu isku difaacnaa qoriga afka fanka heesaha inta waynu isku difaacnaa waayahay muuqaalkan like saar sidoo kale si share gareey aad iyo aad baad mahadsantihiin عياني weligood ha ciyaane ha ciyaane weligood ha ciyaane awrka caynka u giija caynka waxa la yiraahdaa awr xagga intiina garanay ma la hadlaya awrka waxa la yiraahdaa caynka waxa la yiraahdaa xadhkaha lagu raro xadhig kamid ayaa la yiraahdaa waxa weeye ha ciyaane sidan ha u ciyaane sida weligood ha ciyaane weligood ha ciyaane ha ciyaane weligood ha iska ciyaane carigeena ilaasha dhulkeena ilaasha waaye calankayga ayaan la wariga cirka joog ciil mudamaysid calan baa ku ilaasha waaye ciidan baa ku ilaasha cudud baa ku difaacda calan baa ku ilaasha waaye sida nuur daalacay iyo marwe canab waxa weey waan idinka haynaa difaaciini halkaana kaga jira difaaca huwanta soo karbaasha waxaad kala soo karbaashtaan qadaadweynta xasan sheekh oo ma garanaysaa jaranjaradu fuulaaba ee uu Somaliland kaga hadlay siraabo ila go'aasa cabdi xaashi ninka la yiraahdo ee sheegta maxay dhahday golaha gudoomiyaha golaha dhaxama aqalka cad ee Soomaaliya maalintii dhawadu Somaliland ka hadlayay waa kii kursigu la jabay waxa weey qof kasto reer Somaliland isku soo doonta kursiga la jabay ma aha jaranjaradu uu fuulayo ee uu Somaliland ku soo cays leeyahay sidaas ay ila go'aasa waryaaraheed reer Somaliland waxa weey malaha waxa mararka qaar dhulkan iyo calankan waaba aayad gaar ah anu waan hambalyeynaya maalintii calankeena laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah lagu dhex qoray sababtoo ah waxaynu arkanaa jaranjaro kasto loo fuulo ku wax ka soo sheegisraa jaranjaradu fuulaya boy la go'aasa ilaahay uba hoos loo ridaya waayahay saaxiibayaal muuqaalka waynu sii wadanana muuqaalka share garee like garee cadawga gaarsi indhaha cadawga kaga dhufo weligood ha ciyaane iska ciyaane weligood ha ciyaane awlkowgiija ha ciyaane weligood ha ciyaane allah maxaa la karbaashiniyo way
calankayga ayaan low kuma taagin ciyaare qasab baan ku taagnay wallaahi waa runtii maalintii naftood hurayaal geesiyiina oo ma garanaysa cudud iyo naf iyo maalba u huray maalintaas oo calankan istaagmay marka naf hure aad heshid ma garanaysa sida diinta ku difaacaya waxa weey waxba ka xumaamaayaan calankana waxaanu leenahay awiyashayo hadii ay difaaceen oo sida ay diinta islaamka ay u difaaci lahaayeen calankayga u difaacinaya sharaftayada iyo cibdigayaga waxa weey calankan marnaba dhibaato ma soo gaadhaso qasabeen ku taagnay waanu sii wadanaa inanta hadalkeeda iyo heesta qaybtay kaga jirto marwo canab guuleysaan ku leeyahay caruur baa la xasuuqay maxas baa ayaa la ciqaabay waxa weey waynu ogeyn caruur masaakiina oo ma garanaysa aan waxba galabsan ayaa inta diyaaradda Hargeysa laga kiciyo dib loogu rusheynay waa caruur aan waxba kala ogeyn 5 jir 10 jir ka ugu weyn 15 jir yahayba ayaa xabad lagu rusheeyay maxay dhahdayay diyaarad ma taasan maxas iyo caruur la ciqaabin Ilaahay bay ku dhaariyay waaye balansi wadano waxa weey waa xaqiiqo heestan difaaceeda iyo xaqiiqadii hore ay wixii aynu hore u soo marnay ayay ka waramaysaa sida runtii roto weligood ha ciyaare awalkowgiija shacabkayga cawaalow cududdiina mideeya nin baa soo carinaya buu leeyahay cartaas soo haya way sida ha iska ciyaare ba yo ciyaane kiita هذا المكرس يا حوالو calankayga cawaalow weligaa jiro joog cadowgiisuna ha waasho siduu u ooyiyo maanta oo dhan waa li nafta kaga baxdo aygo ciyaare weligo ciyaare giija Allah weligo ciyaare ayo iska ciyaare weligo ciyaare giija waxaan leeyahay halkan waxaan ka salaamayaa nuur daalacay iyo marwo canab waxaan leeyahay kaalintiina qarannimo iyo kaalintaad qaranka ugu jirtaan marnaba ha gabina waxaan leeyahay dadaalka halka ka wada calanka tawxiid kale calanka ay kelmadda laa ilaaha illa allah ku dhex qoran tahay waxa weeye marnaba guul daraysan maayo calankeenu waxa weeye mar warba waa sareynaya
idinkana waan hambalyeynayaa waxa weeye bartaa ka wada cadowgu waa jabayaa nacabku waa ciyayaan nacabku waa ooyayaan nacabku ma garanaysaa iyagu way gunuunucayaan way soo gunuunucayaan laakiin marnaba hadal ay yiraahdeen ama Soomaaliland ay yiraahdeen kama marnaba waxba kama bedelayaan waynu ogeyn xasan sheekh markii 2024 bilow soo noqday inaynu fooda istarray waa cadowgii labaad aynu 2 sano gudahood isqabana sanadkii hore huwan baynu saynay inkastoo halka soo fadhiyaan haddana waxaynu fooda isku qabanay xasan sheekh bahdilkii kaga soo dhacay Ethiopia waka hal doorkii isaga la joogay weligeed bay dad marti ahaan ay marti la isku noqon jiray weligeed baa marti la isku noqon jiray balse xasan sheekh dhibaatadii iyo magara ceebtii Ethiopia ka soo raacday ayuu aqoon-yahanantii reer Soomaaliland ee bartaa joogtay ayuu kula dul dhacay ciilkii oo intuu guryahooda ugu tago ku ceejinaya waxaan leeyahay calanka Soomaaliland ha guuleysto waxa weey shacabka reer Soomaaliland ee jecel midnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland koristaageeda ha guuleystaan canab ugu dambeyn marwe canab iyo nuur daalacay waxaan leeyahay idinku heesaa qaranka ayaan diidaynay difaaca qaybta kaga jira ha ka bixina weligiin ilaa intaad dhimanaysiin aad iyo aad baan u mahadsantiin